السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركو رئيس وحامهات اسكال الله سبحانه وتعالى. برامج كينا مانتو حكو سابسين يهي مسكح هذا إلا انتي أي حوغان تاي وليغا مكبول وشي أو مكوول والجليسي مسكح هذا برسنتج انتي لأك أي شقيسة أو أي حوغان تاي مقال كينا مانتا أيان وحالي دونا هدو الله إدمو هدي أي تاي مركي كوغو رئيسو أتصوى بوقتو يوتيوب جانل كيغا دكتور جوهاري اوفيشيال فالون سبسكرايب سار oo la wadaag asxaabtaada haddii muuqaalka aad ka heshay oo ku qanciyay ama oo ku raali geliyay fadlan like ii saar oo la wadaag asxaabtaada maanta muuqaalkana waxaan uga hadli doonaa how strong is your mind maskaxdaadu ilaa intee ay xoogan tahay oo qaab tijaabo ahaan aan u sameey doonaa hadduu alla idmo insha Allah ilaa iyo dhowr tijaabo aan sameey doonaa waxaad ku ogaan doontaa muuqaalkani marxaladee ayaad ku jirtaa marxaladaha tijaabada aan ku sameyn doono hadduu alla idmo marxalada aad ku jirtid ayaad ku ogaan doontaa muuqaalkeena maanta aan isla socon insha Allah sanadkii 1935 nin lagu magacaabo John Ridley ayaa waxa uu abuuray ama uu sameeyay hab lagu cabiro sida ay u shaqeyso ama sida ay u xoogan tahay maskaxda bini'aadanka shaqo ahaan intaba habkaasi wuxuu ku magacaabay Stroop test oo ah sida ay u shaqeyso maskaxda bini'aadamka tusaale ahaan waxaa lagu siiyay eray for example eraygaasi waxa waaye waa gaduud ama waa buluug laakiin waa inaad iska ilaawdaa sida erayga uu kuu sheegay waa inaad iska ilaawdaa taa bedelkeeda waxaad ku dhawaaqaysaa oo aad sheegaysaa kalarka qoraalka uu qoran yahay tusaale ahaan jawaabta ugu saxsan ee hadda kuu muuqato waxa waaye waa blue waay maxaa yeelay kalarka ayaa ah blue so kalarka siduu u qoran yahay uma sheegaysid ee waxaad u sheegaysaa kalarka kuu muuqdo ayaad ku dhawaaqaysaa hadda waxa kuu muuqdo waxa waaye waa blue so markii aad tijaawada markaan bilaabnane waxa aad ku dhawaaqi doonto waxa waaye waa blue waxa kuu muuqdo waay kalarka kuu muuqdo waay hadda kalarka qoraal ahaan wuxuu u qoran yahay yellow oo ah jaalo Soomaan so kalarka qaabku u qoran yahay uma sheegaysid ee kalarka qaabku u muuqdo ayaad u sheegaysaa waxa lagu sii doonaa ereyo taxan ayaa lagu sii doonaa ereyadaasi waxaad sheegi doontaa kalarada ku muuqdo ayaad ku dhawaaqi doontaa hadduu alla idmo so marxalado kala duwan ayaadna mari doontaa marxaladda aad ku fail garowd erey kamid ah haddaad ku fail garowd marxaladaasi that means maskaxda shaqo ahaan waxay ay la eg tahay ama ay ku eg tahay marxaladaasi maskaxda inta ay xoogan tahay percentage-keeda marxaladaasi ay ku eg tahay aan isla tijaabino marxaladee ayaad ku jirtaa so marxalad walba aad ka guuleystid hore ayaad u soconaysaa so waxaan ka bilaabaynaa marxaladda ugu horeysa ayaan ka bilaabaynaa oo ah stage 1 aan isla soconno marka red green blue pink green red pink blue green red way fududahay midaan Soomaan aad u fududahay sax waayo waxa aan aqrinayo waxay ahaayeen kalarada ii muuqda ay ahaayeen soo marxaladda ka dambaysa way ka sii adkaan doontaa hadda kalarada aan aqrinayay waxa u dhaxeeyay space la eg ilaa iyo 2 second ilaa 3 second marxaladda xigta sekemada waa laga sii yaray doonaa mid ka dambaysa waxay noqon doontaa mid ka dhaqsiyaha badan kalarada waqtiga ay ku baxayeen aan isla socon insha Allah so haddaad ku fail garowday marxaladan kalarada aqrintood haddaad ku fail garowday mid kamid ah that means maskaxdaadu ma gaarsana heer maskaxdaadu inay tahay maskax xoogan oo aad u shaqeysa aan isla soconno marxaladaha kale stage 2 waa marxaladda labaad blue yellow pink red green yellow blue pink brown gray
yes haddii aad ila dhamaysay wareegan ama marxaladaada dad ila dhamaysay waxaad leedahay nooc loo yaqaano mindset strengths of an average human oo ah marxalada nooca maskaxda shaqaan marka la fiiriyo marxalada bil-aadanka oo dhan ay u badan yihiin celcelis aan marka la fiiriyo so average human mind ayaad leedahay waa haddii aad ka gudubtay waayo waxaan u gudbaynaa stage 3 marxaladda saddexaad yellow blue red pink brown green pink gray blue way kasii adkaad soomaan marxalad ka dambaysa way kasii adkaatay so haddaad dhamaysay marxaladani waxaad leedahay maskax aad u xoogan ayaad leedahay sidaas darteed marka si aan u hubino in maskaxdaadu inay tan ka fiican tahay waxaan u gudbaynaa marxaladda xigta ama wareega xiga aan isla soconno stage 4 oo ah marxaladda afraad blue gray red gray pink yellow red brown pink wow والله هذا وأتكلم حقيقة that was very tough waayo sababta xitaa kala aad loo bogsiinay soo maskaxda markuu waxa laga rabaa inaad aad u toojiso haddaadan maskaxda tuujin way adag tahay kalarada sakamadaasi aad ku yar u gudbayo inaad wada sheegtid aan fiirino marxaladda xigta idris sidoo kale siday noqon doonto haddii aad manage garaysay wareegani waxaad leedahay very strong mind maskax aad u xoogan ayaad leedahay haddii maskaxdaadi tan ay kasii xoogan tahay aan isla firin insha allah ila soco marxaladda xigta stage 5 oo ah marxaladda shanaad red pink blue gray yellow pink brown red gray wow والله way kasii adkaytar sababta waxay tahay marxaladani aad loo bobsiinay kalarada so haddii baska aad ka gudubtay marxaladani waxaad leedahay immensely strong mind oo maskax aad u xoogan dadka badanaaba marxaladani ka gudba tijaabadani waxaa lagu xisaabiyaa inay yihiin dad maskaxdooda aad u shaqeyso waliba dad badanaaba lagu yaqaan inay yihiin dadka ka falceliya waxyaabaha reactionada si degdeg u falciyo very quick reaction times waxyaabaha falgalada kale dad si dhaqso ugu falcelin kara ayaa lagu tiriyaa waxa kale lagu xisaabiyaa dadka marxaladani ka gudba oo marxaladda shanaad inay yihiin dad quick thinker ah dad si dhaqso u fikira oo marka wax loo diro kale in waxaas inay ugu jawaab celiyaan fikir ahaan oo ay wax iqtiraacaan waqti badan kuma qaadato sida la sheego waayo sababta xitaa maskaxdooda qaabkay u shaqeynayso ayaa u suuragelinaysa in fikradahana inay si dhaqso leh ay kusoo gudbiyaan waxaa kaloo lagu tiriyaa dadkan inay macquul tahay inay leeyihiin taalantiyo kala duwan oo ay la imaan karaan marka loo fiiriyo ciyaaraha kala duwan ee adduunka ka jira inay talent ku lahaan karaan ayaa lagu xisaabiyaa so haddii marxaladani aad ka gudubtay waxaa tahay qof talent leh hore u soco insha allah aan isla fiirino qaybta ugu dambaysa the final stage waa marxaladii ugu dambaysa waay aan isla fiirino marka red green blue red gray green brown gray yellow pink waxaa welinaa marxaladda ugu dambaysa aad u adkayd waayo sababta xitaa kalarada qaabka loo bogsiinaya xitaa inaad saxdo wallahi aad u yartahay waayo dadka marxaladani ka gudba waxaa lagu xisaabiyaa inay ku jiraan boqolkiiba hal wax ka yar waana dad aad u dhifa very rare lama helo dadkani haddii la helana waa boqolkiiba hal iyo wax ka yar waaye sababtu waxay tahay dadkani waxay leeyihiin strong and crazy fast reflex and reaction times oo qaabka ay wax ugu falcelin karaan waxa waaye waa qaab waali ah oo degdeg ah waxaan lagu xisaabiyaa dadka geniuska lagu xisaabiyaa aniga haddii aan ka gudbin marxaladani qaybta commentiga ha lagu soo gudbiyo haddii aan ka mid ahay dadka less than 1% ah
iyo haddii kale adika ii sheegi doon insha allah. waayo qaabka ereyada ay sida dhaqsile u gudbayeen iyo qaabka aniga aan ugu jawaabayay hadday isleeyihiin adika ii sheegi karo, haddaan genius ahay adika ii sheegi karo. marka adigan insha allah waxaan idinkula tali lahaa muuqaalka intaad hal mar baws garaysataan oo aad soo bilowdaan oo qaabka anigaan u akrinay inaad ila akrisaan. so waxaad ogaanaysaa marka marxaladda aad ku jirto aad ogaanaysaa stage 1, stage 2, stage 3, 4, 5 iyo final oo ah less than 1%, boqolkiiba halkii dadka ku jira. marka insha allah waxa waaye qaybta commentiga ku sheekaysan doona hadduu alla idmo. aadaa umahadsantiin. muuqaalka hala share gareeyo. haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo boqoto youtube channelkayga subscribe sar, la wadaag asxaabtaada, like-gan yaa laga ilaawin, challenge-ga ha laga soo baxa. aadaa umahadsantiin.